magaalada Aangalo oo ka tirsan degmada Booq ee gobolka Doolo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayo laguna soo dhaweynayay musharaxiinta socda xisbiga talada haya ee Barwaaqo. Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen shacab weynaha Aangalo iyagoo sheegay inay soo dhaweynayaan musharaxiinta ka sharaxan xisbiga, waxaana ugu horeyntii halkan ka hadlay Xuseen Cali iyo bahda saxaafadda. waa salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkani waa magaalada Aangalo oo ah center suge Aangalo. halkan waxay isugu timid inay muujiso ama soo shaaciso taageerista iyo raacsanaanta ay u hayso xisbiga talada haya ee Barwaaqo ee dawlad deegaanka Soomaalida. xisbigaas oo shacabkanu ay ku taageersan waxa koowaad ee marka ugu horeysa ee dadku ay ku dhaqan yihiin waa nabad. nabadayntii ay ka qaadatay deegaamadan bariga Doolo baanu ku taageersanahay. marka koowaad waxaanu ku taageersanahay hadaf siyaasadeedkeeda nabad ugu weyn tahay, horumarku ku xigo, rajadu ku xigto baanu ku taageersanahay. dadka shacabkan ku nool Aangalo waxay diyaar u yihiin oo soo bandhigayaan taageerista buuxda ee u hayaan xisbiga Barwaaqo. wayna la shaqeynayaan insha Allah taala. iyaga doortay inay dareenkooda muujiyaan. shacabkan iyaga doortay ka magaalo ahaan iyo ka deegaan ahaan in ay dareenkooda muujiyaan iyo taageerista ay u hayaan xisbigooda taageerista inay muujiyaan iyaga doortay. wax hadda u yimid musharax ama wax hadda golaha ka sharaxan oo jira ama jooga ma jiro. waa shacabkii Aangalo oo kaliya oo iyagu doortay inay xafladan qabsadaan kuna muujiyaan taageerada xisbigooda. taas waxay cadaynaysaa mar haddaan xildhibaan ku dhex jirin, madaxweyne hadda joogin, xubno kale aanay joogin, wafdi aanay joogin, oo iyagu xafladan ay qabsadeen in ay tahay doonis ay doonayaan hadaf siyaasadeedka xisbiga Barwaaqo, kuna la shaqaynayaan, kuna doonayaan inay ugu codeeyaan fuyuujarka insha Allah taala. intaa waxaan ku darayaa marka koowaad waxay kale oo shacabkanu taageersan yihiin xubnaha baarlamaanka ee u sharaxan xisbiga Barwaaqo oo ay ka mid yihiin mudane Faysal Rashid oo ka sharaxan heer degmo oo ah danood u sharaxan. waxay kaloo taageersan yihiin injineer Axmed Cali Soofe oo isaguna ka sharaxa musharax xildhibaan oo heer degmada Booq isaguna ka sharaxan. waxay kaloo taageersan yihiin Samsam Axmed Jaamac oo ka sharaxan ama musharax ah ilaa heer federaal oo ka soo jeeda. dhammaantooduba ay ka soo jeedaan bariga gobolka Doolo. dhammaantood way soo dhaweynayaan shacabka Aangalo. aan la maartay hardaamada lahayn shacabka u turidiisa leh, nabadda leh, nabad ka shaqaynta leh, shacabka u turidiisa leh, maartay shacabka ilaalintiisa leh. taasaan ku taageeraynaa xisbiga Barwaaqo. taan ku taageerayno waa nabadda iyo furnaanshaha iyo wada noolaanshaha oo ah ta ugu horeysa iyo nabadgelyada. xisbigeena macnaha waxa weeye Barwaaqo nabadeediina macnaha waxa weeye soo xidhay. haddana aanu ku wada fadhinaa. waa shayga koobaad aanu ku dooranayno ku taageersanahay. waxaanu ku taageersanahay waxqabado badan oo aan la koobi karin sida caafimaadka,
yacniga waxa weeye biyaha waxbarashada waxa la yiraahdo ayaanu ku taageersannahay. bismillaahir rahmaanir rahiim. culimadii waynoo duceeyeen culimadii waa labadii sheekh magaalada. bismillaahir rahmaanir rahiim. aniga magacaygu waa Caawil Xasan Faarax waa gudoomiyihii aan galo. marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha ka soo qayb galay xafladan quruxda badan ee sharafta leh, dhalinyarada, odayaasha, haweenka ayaan salaamayaa. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum. salaanka bacdi hadafkeenu waxa weeyaan inaynu taageersannahay xisbiga barwaaqo. hadafkeenu weeye xisbiga barwaaqo ee u sarreeyo ra'iisul wasaaraheena Abiy Ahmed. kaasaynu taageersannahay, kaasaynu marqiyo maalba siinaynaa, isagaan taageersannahay. wakhtigoo inagu gaaban darteed wax yaroo kooban baan ku darayaa. dadka reer Aangalo ee maanta shirkan isugu yimid dareenkooda iyo codkooda way muujiyeen. hadday muujiyeen waa un sii iyadun baan sii taageerayaa. dareenka reer Aangalo wuu muujistay. waxaan idiin sheegayaa meel kastoo la joogo in xafladdan cidda qabatay ay tahay shacabka ku nool magaalada Aangalo oo aan cid xil doonaysaa ayan isugu yeedhin, wacin, fadhiin, joogin, iyagoo oo taageero ugu muujinaya shacabka barwaaqo ee BB ee xisbiga barwaaqo. salaanka bacdigeed ururka xisbiga barwaaqo waanu taageeraynaa. dhammaan odayaal iyo dhalinyaro iyo haween waanu taageeraynaa. muddo dheer ilaa kilil 5 intii la dhisay kolley waxqabad tabasho badan yaanu sheeganaynaa, laakiin maanta xisbiga waanu taageeraynaa.